السلام عليكم كلن xiisa badan ku soo dhawaada channelka taariikh waxaan maanta kaga hadli doonaa afar gabdhood oo kalkaaliye ah dilna ka geystay isbitaalkii ay ka shaqeynayeen afartan gabdhood waxay lagu eedeeyay inay dileen 200 oo qof halka ay iyaguna qarasho ka sameeyeen 49 dil ah inay geysteen qisadaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qisadani waxay ka dhacday Lyons Vienna sanadii 1983 afartan gabdhoodii waxay kalkaaliye ka ahaayeen isbitaalka Lyons halkaas oo ay ka shaqeynayeen afartan kalkaaliye waxay la bixeen magac jiib ah oo dad badan ay ka yaabeen ama ay la noqotay la yaab waxay la bixeen malaa'igtii naxariista Lyons laakiin naxariistoodu waxay ahayd dil qarsoon asbitaalka guud Lyons waxa uu lahaa qaybo kala duwan ayaguna waxay ka shaqeynayeen qaybta bukaanada dadka waaweyn lagu daryeelo gabdhahani oo lagu kala magacaabo Maria Gruber, Arena Lidov, Steven Meyer iyo Walter Wagner waxay ahaayeen afar gabdhood oo ka shaqeynayay isbitaalka gaar ahaan qaybta waayeelada lagu xanaaneeyo dilkii ugu horeeyay waxa geystay gabadha lagu magacaabo Walter Wagner oo 23 sano jir ah oo sidoo kale gacan ka helaysa gabdhaha kale ee ah Gruber oo ayaduna 19 jirta iyo Lidov oo 22 jirta iyo groupkan qofta ugu weyn oo lagu magacaabo Steven Meyer dilka ugu horeeyay oo dhacay 1983 oo ay hor socotay gabadhan ama hormuud u ahayd gabadhan Walter Wagner wuxuu ku dhacay qaab ciyaar ah oo ay ku sameeyeen in bukaan ay neef qabatin ku sameeyaan iyagoo oo sanka iyo cunaha qabanaya sidoo kalena ay afkaba uga buuxinayaan biyahaasi ay u soo gudbaan sambabada habkani ay adeegsanayaan oo ay dadku ku dilayaan ayaa ah khibrad ay adeegsanayaan isdhihi karaan leedama ogaan karo qofkan marka uu dhinto yeeridiisa kadib baaritaanada lagu sameeyo in la dilay iyo kale maadaama qofka waayeelka badana xanuunada ay iskaga dambeeyaan ay dhici karto in sababadiisa ay biyo fariistaan xaaladaha noocaasna ay yihiin dadka ay badana ay beegsanayaanba dadka waayeelka ah gabdhahani waxay cadeysteen in dilalka ay joogteeyaan oo ay fuliyaan hadaysan bil fulin bisha ku xigta dil ayay fulinayaan waxay ahayd qorshe ay dejisteen kuna fulinayaan dilal kala duwan iyagoo bartilmaameed ka dhiganaya shakhsiga ama qofka ay doonayaan sidoo kale baaq ka dhigan jireen marka ay rabaan inay qof bukaan ah ay dilaan ama ay kharijiyaan inay adeegsadaan eray ay isku garanayaan oo markaasi ay iskugu baaqayaan oo ah tigid ilaahay oo ay la jeedaan markaasi bukaan ayaa la rabaa in la kharijiyo dilalka ayay wadeen muddo 6 sano ah ilaa 1989 oo ay isbitaalka ka shaqeynayeen waxaana la soo gaaray xilligii ama gunaanadkii shookadooda dilalkooda iyo waqtiga kashafaadooda waxaana dhacday dil ay geysteen maalmo ka hor oo ay ka fuliyeen xaafad deegaanka kamid ah ayaga oo ka sheekeynaya qaabkii ay u silacdiliyeen ayaa waxa maqliyay ama dhageysanayay mid kamid ah dhakhaatiirta isbitaalka markaas ka shaqeeya gabdhuhuna waxay ku dhex sheekeysanayeen isbitaalka gudihiisa dhakhtarkii ayaa sheekada si fiican u dhageystay iyagoo mararka qaadna sheekooyinkii hore iyo dilalkii hore ay fuliyeen ku soo darayay sheekadooda isla markiiba waxa uu la xiriiray booliska ayaana afartii gabdhood xiray waxaana la galay baaritaan ku saabsan dilalka ama kiiska loo haysto ee ah in ay dilal geysteen baaritaanadii ay sameeyeen booliskana waxaa ka soo baxay in la helay cadeymo muujinaya in ay geysteen 200 oo dil ah balse qirasho kadib waxa ay qirteen gabdhuhu inay dileen 49 qof maxkamadda ayaa go'aankii ugu dambeysay gaartay waxaana lagu kala xukumay Walter Wagner oo ahayd maskaxdii kooxdan waxaa lagu xukumay xabsi daa'in halka Lidov ayadana sidoo kale lagu xukumay xabsi daa'in laakiin gabdhaha kale ah Meyer iyo Gruber waxaa lagu kala xukumay 20 sano iyo 15 sano sanadkii 2008 wasaaradda cadaaladda waxay ku dhawaaqday inay sii deyn doonto Wagner iyo Welford sabab la xiriira inay anshax wanaagsan ay ku dhaqmeen muddadaasi ay xabsiga ku jireen dhanka kalena Meyer iyo Gruber ayaguna xabsiyadii ay dhameysteen ama waqtigii lagu xukumay ay dhameysteen markii ay ka soo baxeen waxay qaateen aqoonsi cusub
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa mawduuca maanta kaga hadlaynay kalkaaliyaashii dilaaga qarsoon ahaa ee isbitaalka ku ugaarsan jiray dadka. fadlan channelka haddaad ku cusub tahay subscribe saar haddii aad hore uga mid ahaydna aad baad mahadsan tahay. nabadgelyo.